guriga aan deganaa duqeymo ku dhacay dibna waa gaadhay burburna uu gaadhay wuxuuna kamid ahaa guriyihii magaalada sida aan midaan dayga lahayn loo duqeeyay gurigaygu kamid ahaa aan deganaa dib badan baa dhacay cidii geysatayna wali kursigii bay fadhidaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland mudane Cabdirasaaq Khaliif Ahmed oo laascanood ku booqday ayaa si kooban xogiga siiyay dambiyada dagaal ee taliska Cornel Biixi uu ka geystay halkani Khaliif waxa uu ku sugnaa magaalada laascanood intii uu socday kacdoonka shacabka SSC ee Soomaaliland duulaanka dhagaraysan kaga jawaabtay gudoomiyuhu wuxuu ii sheegay in gurigii magaalada ka deganaa ciidamada Soomaaliland duqeymo u geysteen oo uu gabi ahaanba burburay si lamida guryaha kale ee magaalada kuwaas oo nidaamka Hargeysa hanaan u muuqda argudasho iyo sirnacayb u duqeynayo Khaliif waxaan ugu horeyn weydiiyay gudoomiye soo dhawow halkan laascanood baad ku sugnayd intii dagaalku socday inta ogaalkaaga خسارة دجال كنتوا ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أدي أضد وهن سنتين محمد يوسف runtii muddadii dagaalku socday waxaan ku sugnaa magaalada laascanood dhibka magaalada ka dhacay wuxuu isugu jiraa mid nafeed oo aad u ballaaran oo lagu qiyaasi karo dad ka badan 200 oo qof inay ku dhinteen dhinaca shacabka iyadoo aan filayo inaanay intaa in la mid ama ka badan ay gaadhay ciidamada ay gaadhay iyaguna weerarka ahaa waxa kale oo ku dhaawacmay dad 600 ka badan waxa burbur soo gaadhay kaabayaashii dhaqaalaha iyo goobihii adeega guud oo ay ugu horeeyaan cusbitaalka oo la oran karo way ku noqnoqotay duqeymaha ku soo dhaca oo maalintii ugu horeysay qaybtii oxygen-ta ayaa dhaawac u gaadhay iyo dhibaato soo gaadhay maalintii xigtayna wuxuu soo gaadhay qaybtii solarka markii dambe wuxuu soo gaadhay qaybihii kala duwanaa ee cusbitaalka oo ugu horeyso qaybtii dhalaanka iyo hooyada oo burbur aad u ballaaran oo soo gaadhay waxa soo gaadhay burburkaasi masaajidada wuxuu soo gaadhay hantidii maguurtada ahayd ee dadku lahaa ee shacabku lahaa gaar ahaan dhinaca bariga oo dagaalkii ugu badnaa uu ka dhacay iyo dhinaca galbeedka oo iyagana maalmihii ugu dambeeyay uu ka dhacay marka waxa la oran karaa runtii waxa soo gaadhay burbur aad u weyn waxa kale oo isna jira barakac aad u ballaaran oo dad 200 oo kun ka badan ay kaga barakaceen magaalada oo ay gaadheen dhinaca Puntland dhinaca ismaamulka deegaanka Soomaalida iyo dhammaan deegaamada ama hawdka ha noqoto ama nugaasha ha noqoto ku hareeraysan waxa kale oo runtii dhibaato ka weynta ah inta nafsiga ah ee soo gaadhay dadka shacabka ah ee waliba dadka nugul ee hooyooyinka iyo dhalaanka iyo waayeelka oo aad dareemi karayso hub kasta oo loo isticmaalo cadow loo isticmaalo lagu isticmaalay magaalada laascanood marka runtii dhibaatada soo gaadhay magaalada iyo khasaaro aad bay u ballaaran yihiin gudoomiye ma hadsan tahay taladii Soomaaliland hadda Muuse haya sida ku dhigan taariikhdana xukuumaddiisa ilaaniyo adiga iyo rag kale oo saaxiibada ah oo isku aragtay siyaasadeed ahaydeen treenka waxa uga degteen inaan majaraha xisbigaas iyo dhaxalka kursigiisa ilaaniyaan lagu wareejin Muuse 2000 iyo qiyaasi 2015 meelahaas ahayd ma aqoon durugsan baad u lahayd waqtiga Muuse mise ifafaalahan adarkiisa runtii Muuse waxaanu ka wada tirsanay xisbigii markaa talada qabtay ee kulmiye intuu san talada qaban iyo markii uu talada hayayba waxa ugu filayd in lagu qiimeeyo madaxweynaha iyo hab dhaqankiisa ama falaadkiisa muddadii 5 sanadood ahayd la doortay madaxweynaha in isagoo gudoomiyihii xisbiga uu mucaarad ku ahaa oo uu la dagaalamayay xisbigii isagoo Jermanka uu ahaa taasi waxay muujinaysay in aanay ahayn qofkii ku haboonaa ee xisbiga lagu wareejin lahaa waxa kale oo noo muuqatay in cidii kale ee markaa u tartabaysay kursiga inay xisbiga murashax u noqota inay mar walba ka mudnayd oo ay Muuse ka mudnayd inay qabato maxaa raadaay xilka inay qabato waana filaya maanta qof kasta oo nagu khilaafsanaa ama u sahlay inuu halkan gaadha maanta inuu aragti ka duwan qabo waatay gudoomiye duqeymaha Muuse geystay dad baa dhintay barakac baa dheer Muuse weli mansabkii uu dulmiga ku geystay fadhiya ma kula tahay Soomaaliland iyo reer Sool ayaa mar kale nabad ka wada hadli kara runtii waxaan anigu qabaa dhib badan baa dhacay cidii geysatayna wali kursigii bay fadhidaa waa sax arintaas laakiin mar walba inaan la quusanin oo nabad laga shaqeeyo anigu ka gudoomiye ahaan waan qabaa waxaan se isleeyahay
oo aan su'aal gelinaya talow ma laga heli karayaa muuse oo arrintaasi suuragal ma ka tahay madaxweyne muuse maadaama isku dayo badan oo la isku dayay iyadoo intan ka qabow iyadoo naca iyo dhibaatada dhacday ee hadeerto korodhay ee mararka qaarkood gaadhayba dadkii shacabka ahaa oo goobahoodii shaqada joogtay inta laga qaato sidii umaayar ku sheegayba lagu dilo oo wadooyinka lagu tuuro baabuurtii magaalada ka baxday in dad lagala duwan la dilo iyadoo halkaa la gaarsiiyey oo niciina sii kordhay madaxweynuhuna aragtidiisi wuxuu ka bedelay aynaan ogeyn suuragal ma tahay xaggiisa suuragal ma ka tahay inay hirgasho laakiin waxaan isleeyahay mar walba inaan la quusanin ee inta nool loo taliyo ayay dhaqan ku wanaagsan yihiin waa tahay guddoomiye gurigaaga waxaa la sheegay inuu ka mid yahay daaraha duqaymaha loo geystay arrintaas ma jirtaa guriga aan deganaa duqaymaha ku dhacay dhibna waa gaadhay burburna uu gaadhay wuxuuna ka mid ahaa guryihii magaalada sida aan midandayga lahayn loo duqeeyey buu gurigaygu ka mid ahaa aan deganaa haddana meesha aan kaga soonayn waad arkaysaa shacab isdifaacayay somalilan ku tilmaantay argagixiso mar kale puntland haddana eritrea federaalka iyo meelo kale adiga qudhaada rag baarlamanka ka mid ah ayaa argagixiso kugu eedeeyey maxaad kaga jawaabaysaa runtii waxay noqotay iminka waxyaabaha cusub ee soo baxay oo qofku isagoo aan u meeldayn qofkii markaa aragtida ay isku khilaafaanba inuu wax uu ku leebel gareeyo aan macno badan runtii samaynaynin caalamkuna iminka uu ka gudbay heerka uu ka gudbay oo qof kasta iyo khalfiyaadkiisa iyo meesha uu ka soo jeedo waa la ogyahay dhibaatada halkan ka dhacday iyo kacdoonkani meeshii uu ka yimid iyo waxyaabihii uu sababsaday cid waliba way ogtahay waxaa aada u layaab badan runtii xishoo darro ah iyadoo bulshada caalamku dhammaan ay ka hadashay hay-adaha xuquuqul insaanku ay ka hadleen united nations ay ka hadleen cidda dhibka loo geysanaya inay tahay dad civilian ah oo aan wax dhiba geysan in ilaa iyo hadda xukuumaddu ay ka daali la-dahay inay maalinba maalinta ka dambayso waxyaabo cusub oo maaragtay la odhan karayo waxay dab kusii shubayaan muxuu ahaa dhibaatadii jirtay inay arrintaas ay abuurayso anigu runtii damqi mayso waa maqlayay dad noocaas u hadlaya oo runtii aan ahayn dad maaragtay macno badan oo ama baarlamaan ha ku jirin ama dad kaloo qaar noloshaaba ka dhacay oo aanan runtii anigu aanan kufa ahayn inaan u jawaabo meelaha war badan ka sheegaya waxaan isleeyahay dhammaantood waxay ku hadlayeen afka xukuumadda waa gartay guddoomiye waxaad soo joogtay laascaanood oo camiran dhisan dalku nabad yahay adiga lagaa soo doortay dembiye dagaal baa dhacay ciddii dembiyadan gashay maxaa idinka meel yaalla waxay noqonaysaa runtii golaha aan anigu odayga u ahayna arrintaa guddi bay u saareen guddidaas oo ka hadli doonta arrimaha laascaanood xaaladeeda soo ururin doonta ciddii markaa loo tirinaya inay dhib ka geysatayna su-aala aan filaya inay ka weydiin doonaan ay tahayna waxyaabihii loo doortay inay kula xisaabtamaan dhibaha ka dhacay dalka talabaadna inay kula xisaabtamaan marka xaaladahan oo kale la gelayo goluhu isagaa awoodeeda leh in uu maxaa ama dagaalka la galo oo fasaxo ama inuu diido marka run ahaantii waxaan isleeyahay arrintaa iyada ah cidla dhici mayso bulshada caalamkuna in badan oo kamid a carabka way ku dhufatay in arrintaa iyada ah aanay xisaabtan aan dhacaynin bulshada deegaanku oo ay hogaankeeda dhaqanku hormuud u yihiinna way ka hadleen aniguna waxaan aaminsanahay ka shakhsi ahaan waxaan aaminsanahay in arrintaa iyada ah baadhis madax bannaan lagu sameeyo cid kasta oo dembi geysatayna ciqaabteeda ay la kulanto ugu dambeyn fariintaada guddoomiyenimo guurtinimo odaynimo ee aad daneeyayaasha iyo cid kastoo caqli u saaxiiba aad u diraysaa maxay tahay waxaan u dirayaa oo runtii ay tahay kelmadeeda ugu dambaysaa maanta intii dhib dhici karaysay way dhacday wax dhib la geysan karaya waa la geystay wixii nac la abuuri karaya waa la abuuray inaan qori waxba lagu xallin karaynin way muuqatay waxay taladeedu tahay in caqligu shaqeeyo taladaa tale ka duwanaan la yimaado